بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم كسو دواada Safi channel. maanta waxaan ka hadlaynaa arrin muhiim aan u arkay oo dad badan taabatay khaasatan caruurta waxa weeyaan waxaan loo yaqaano cerealka oo noocyo badan leh sida cornflakeska, rice crispy-ga, cocoa bobs-ka, cocoa bobs and kika maxaa Weetabix. magacyo badan ay leeyihiin mid walbaba maxay ahayto wuxuu ku dadaalay siduu cerealkiisa uga dhigi lahaa wax aad u fiican caruurta faa'iido u leh quraac sahlan ah vitamins badan ku jiraan maxay ahayto health health diet ah balanced ah maxay to energy ku siinaya xayeysiino badan oo noocaas ah boxyada ku qoran laakiin runta waxa ay tahay kambaniyadaas ma aanay sheegin sida aad maxay ahayd qaar badan oo idin kamida ay og yihiin waxa la sheegay breakfast cerealska inay ku jirto sonkor aan xad lahayn iyo cusbo aan xad lahayn sonkortaas aan xadka lahayn marka caruurta markaa subaxa hore ku quraacisid adiga oo u haysta inaad caruurtaadii cunto fiican oo healthy siinaysid ilmaha arintaas waxbay u dhimaysaa maxaa yeelay ilmaha waa ilmo yar waxa sonkorta halkan ku jirta sonkor ka tan badan weeyaan for example breakfast cerealka baakada waxa ku jiro hadaad akhrisaan waxa ku qoran 30 garaamo oo cerealka ah inta sonkor ku jirta inta cusbo ku jirta inta carbohydrate and so on marka aad fiirsaan cereal badan oo aan eegay waxaan ogaaday in 30 garaamo ay ka hadlayaan cerealka ah 30 garaamo oo sonkor ay ku jirto almost 30 garaamo oo sonkor ku jirta marka sheekada waxa weeyaan waa gram per gram kasta oo cereal gram sonkor ah ayaa ku jirta 30 garaamo oo cereal wax ay tahay ma jirto 30 garaamo qofna ma cuno ilmaha maybe 1 year old ka xitaa ma cuno 30 garaamo waa saan waa cantoobo waay marka sida badan ciyaalka marka ay cerealka shubanayaan 30 garaamo ma shubtaan times 3 meelahaas ay shubtaan markay ugu liitaan oo times 2 30 garaamo times 3 waa 90 garaamo marka ilmahaas haduu 90 garaamo oo cereal shubtay 90 koodii garaamo oo sonkorta ahaana waa qaatay ilmahaas marka uu iskuulka loo diro marka uu saas la tago iskuulka waa ilmo marqaansan oo limitkii loogu talagalay dhaafay subaxdii markuu indhaha soo kala qaado cunugaas waxaas cunay limitkii bini'aadanka loogu talagalay waa dhaafay saasuu iskuulka ku tagayaa sonkortiisaas marka blood sugar levelskiisaas ayaa kor aadaya marka uu sonkorta cunsan yahay hadhow markay sonkortii jirkiisa ka baxdana it will go down waa crash garoobaya arintaas marka affect badan ayay ku leedahay caafimaadka guud ee ilmahaas maxaa yeelay ilmahan iskuula u dirtay inuu wax soo bartaa u dirtay marka cunuga horta sonkorta intay jirkiisaas ku jirto waxa weeyaan waa high waa very high so dadka markay wax daraagis iyo wax soo cunaan lama dhaho waa high cunugaas sonkorta intay jirkiisa ku jirto waa very high waa very hyper waxba maskaxdiisa xitaa waxba ma qaadi karto iskuulkii wax uga soo kordhaya ma jiraan waxaaba laga yaabaa inuu qalqaalinimo lagu arko oo uu orordo kalaaska dhexdiisa ama ma garanaysaa ciyaalka kala tuurtuuro oo sheekooyin kale ay arintaasna keento marka maxay ahayd breakfast cerealka iyo xayeysiinada beentee lagu qoray oo la leeyahay energy aad ka helaysaa iyo maxayse waa balanced diet iyo waa this and that please baakadana akhriya aniga waa ku qancay waxa aan akhristay idinkana ila akhrisatiin aan jeclahay breakfast cerealka suuqa yaala
maxay ahayto la soo process gareeyay si aan xad lahayn process badan la mariyay nuxurkii oo dhan markii laga dilay iyo fitamiinadii naturalka ahaayee ku jiri lahaa laga dilay ayaa dib waxaa loogu daraa fitamiinada baakada ku taxan oo beenta ah oo kasoo jeeda si synthetic ah vitamins synthetically produced vitamins ayay dib ugu celiyaan cerealkii si ay nuxurkii dib ugu soo celshaan marka waxa vitamin baakada ku taxanna waxba kama jiraan maxaa yeelay wuxuu dhan waa wax process iyo synthetic ah wax la process gareeyay iyo wax la mala awaalay oo fake ah waayo unnatural ingredients iyo natural vitamins aan shuqul ku lahayn waxyaabahaas waa waxyaabaha caruurta ay cudurrada ka qaadeen iyo fudaydka iyo waalida iyo qalqaalinimada marka hooyooyinka aan ogeyn arrintaas waxaan leeyahay ogaada caruurta badi dadka waxaan arkaa alla caruurtan waa fudud yihiin alla waa qalqaali alla intuu ka booday alla intuu fuulay caruurta iska daaya caruurta problem ma aha caruurta waxa la siiyay waa the problemka is not the caruur problemka waa waxa aad siisay ilmahaaga bar inaad wax fiican oo caafimaadkooda wax taraya siisid ilmahaaga hadday si caafimaad cunto healthy ah cunaan maskaxdoodana healthy ay noqonaysaa jidhkooda healthy xataa waxaa isbedelaya dhaqankooda iyo dabeecadooda iyo say wax u fakaraan iyo say wax u fahmaan fahankooda ma imagine garayn kartaan ma qiyaasi kartaan ilmo cunto saxa la cunsiiyey benefitka ku jira wax aad qiyaasi kartaan male cunugaas waxa waaye xataa iskuulka waxbarashadiisa meel saru ka gaaraya because maskaxdii caafimaad qabta jidhkii baa caafimaad qaba waa shaqaynaya ilmahaas macnihii kama warwaraysid laakiin markaad ilmaha sun iyo sonkor iyo cusbo iyo caano maxay too hormones iyo lasoo siiya antibiotics aad ugu qastaan oo subaxdii ilmahaas oo sumaysan iskuulka u dirtaan idinkana natiijaha sugina natiijo iskuulka ha ka sugina laakiin maxaa yeelay waxaan beenta ahee lagaa iibiyey ee lasoo baakeeyey ee lasoo buufiyey ayaad rumaysatay aamintay ilmahaagi siisay hadda aniga waxaan jeclahay inaan idiin sheego inaad cereal ka saartaan shoppingkiina cereal wax la yiraahdo noocu doona ha ahaado shoppingkiina ka saara annaga Soomaali haddaan nahay cereal dhaqanba umaynaan lahayn cerealna laguma soo korinin alxamdulillah annaga canjeerana lagu soo koriyay iyo malawax quraacdeena waa canjeero iyo malawax maybe rooti iyo muufo haddaad dhulkaagi joogtid oo alaabtaas aad heli kartidna alaabtaas wax ka fiican ma lehe cun haddaad dhulkii kasoo maqan tahay oo aad dibadda joogtidna please dhaqankaagii ha ka tegin canjeeradaadii iyo maxay ahayto iyo malawaxaagii iyo wixii hooyada kugu soo korisay ku kori ilmahaaga waliba taxadir kale oo adiga waxaa u baahan tahay alaabtan canjeerada aad ka sameynaysid iyo malawaxa inaad dib u akhrisid taxadirka aad u baahan tahay waa taas marka cereal annaka dhaqanna umalihinna lagumana soo korin umana baahnin waa sunta caruurta waa shay ee la afgaran la yahay ee la leeyahay ilmahan muxuu qalqaal u noqday ee la leeyahay ilmahan muxuu aggressive u noqday ee la leeyahay ilmahan muxuu damiin u noqday iskuulkii uuna laba qabsan karinba maxaa yeelay waa cunug sumaysan markaas hadhowna ilmihii wax laga sheegayaayo la caynayaayo la habaarayaayo la dhibsanayaa problemka ma aha ciyaalka hala daayo problemka waa sunta aad ilmaha aan siina annaka iyo dadka sunta suuqa noo soo dhigay naga iibiyey labadaas waa the problemka caruurta ma aha haddaad cereal jeclaateen ama aad barateen
serial samaysta gurigiina ku samaysta qarnigii 21aad lagu jiraa waa qarnigan waa qarnigii waxa la yiraahdaa information age waxa la yiraahdaa ku jirnaa toosa wax walbaba waa available wax walbaba banaanka yaalaan wax walbaba internetka ku jiraan wax akhriso haddaadan akhrin karin hala ii akhriyade ama dadka maxay ahayd waxay ku sheegaan ka faa'iideyso oo ku dhaqan aniga videogan uma soo diyaarinin intaan screenka soo hor fadhiista aan iska daldalmo uma soo diyaarinin videogan waxaan u soo diyaariyay dhibaato jirta oo aan arkay inaan idinka digo ayaan videogan idinku soo diyaariyay idinkuma soo diyaarinin intaan meeshan soo fadhiista inaan iska hadlo for no reason marka walaalayaal waxaan jeclahay inaad videogan ka faa'iideysataan oo aad serialka ka saartaan liiskiina shoppingka haddaydan ka maarmayna asagoo nooca aad samaysan kartaan ka healthisan aad iyo aad uga healthisan ugana dhadhan macaan haddaad caruurtiina bartaan kaas aad guriga ku samayseen hadday bartaana kan afka dib dambe uma gelinayaan anaa idinka ballan qaaday taas haddaad videogan jeclaysatay ama aad ka faa'iideysatay thumbs up siiya hadday maxay ahayd aad wax su'aalo qabtaan ama wax comment ana hoos ku soo qora idinkoo mahadsan waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullah